cabdiraxmaan ayaa dhalo biyo ah ku tuuray gadaasha dukaankiisa balse si lama filaan ah dhaladii waxay ka gudubtay albaab oo waxay u baxday qiyaastii 2 mayl iyadoo dib ugu laabatay waagii hore antiquity. markaas ayuu ogaaday in supermarketkiisu uu ku xiran yahay xilli hore. wuxuu ogaaday in uu alaabo u diri karo halkaas, xitaa boqorad imbaraadorad ayaa loo soo gudbin karaa dunidiisa. cabdiraxmaan wuxuu bilaabay ganacsi uu la sameeyo isagoo ka bedelanaya dahab, lingots, alaabtii bakhaarkiisa oo dhan ayuu u iibiyey boqoradda. laakiin si yaab leh, marinkan sixirka ah waxaa ka gudbi kara keliya haweeneyda. muddo yar kadib boqoraddu waxay cunto iyo sahay u qaybisay askarteeda iyo dadkeeda gaajaysan. cabdiraxmaan daalay ayuu dhulka fadhiistay. boqoraddu waxay si naxariis leh ugu dhiibtay masar balse saaxiibtiis gabar uu shukaansanayo ayaa aragtay wayna maseertay. gabadhu waxay ka dalbatay sharaxaad. cabdiraxmaan wuxuu ku degdegay inuu yidhaahdo boqoraddu waa macmiil keliya, laakiin gabadha haddii uu doonayo inuu guursado waa inuu haystaa guri apartment, gaari raaxo leh iyo inuu bixiyo meher 1 milyan euro ah. cabdiraxmaan wuu aqbalay balse wuxuu codsaday waqti. gabadhu waxay ku jeesjeestay waxayna tiri inuusan u qalmin iyadoo xasuusisay in warshadiisu ay ku jirto deymo malaayiin ah. waxay kaloo dalbatay 5 euro magdhow ah 3 sano oo ay la joogtay. cabdiraxmaan wuu yaabay wuxuuna garwaaqsaday inuu wax walba u huray balse iyadu lacag uun bay jeclay. wuu cadhooday wuxuuna ku amray inay isla markiiba baxdo. gabadhu iyadoo xanaaqsan ayay u carartay boqoradda si ay uga digto cabdiraxmaan, laakiin boqoraddu kama welwelin waxayna si fudud u weydiisay ma jiraan weli baasto noodles. cabdiraxmaan wuxuu yidhi way badan yihiin. boqoraddu way taabatay oo gacanta ayay u qabatay mahadna. markaas boqoraddu waxay u sheegtay in dadkeedu aqaal sano la dagaalamayeen cadow, sahayna aysan u hadhin. cabdiraxmaan wuxuu ogaaday in guuldarro soo socoto, boqoradduna ay dhowaan ku dhiman karto dagaalka. cabdiraxmaan wuu murugooday wuxuuna u ballanqaaday inuu wax walba samayn doono si uu uga hortago masiibada oo uu caawiyo dadkeeda. kadib waxay tageen warshad waxayna la hadleen milkiilaha. milkiilihii wuu ku qoslay isagoo u malaynaya inuusan lacag haysan, laakiin cabdiraxmaan wuxuu miiska saaray 1 milyan euro horumaris ah wuxuuna dalbaday in si degdeg ah loo keeno 5 ebertan oo bariis, bur iyo saliid ah. milkiilihii wuu naxay wuuna aqbalay. asxaabay follow isoo dhaha fiidiyo lof saar. islamarkaana cabdiraxmaan wuxuu hotel ka dalbaday 100 cunto wuxuuna ku amray in maalin kasta loo keeno. maamulihii hotelka wuu farxay wuxuuna u diyaariyey casho gaar ah. laakiin gabadhii saaxiibtiisii hore mar kale ayay timid iyadoo u malaynaysa inuu raadinayo. waxay ku maadsatay waxayna tiri inuusan bixin karin waxba. cabdiraxmaan si degan ayuu u yidhi inuu u yimid keliya casho. markas maamulihii hotelka wuxuu u keenay dhalo khamri qaali ah. gabadha iyo hooyadeed way yaabeen waxayna fadhiisteen miiskiisa iyagoo codsanaya inuu u shubo cabitaan, xitaa waxay yidhaahdeen waan ku sugaynaa lacagta. cabdiraxmaan wuu ku qoslay wuxuuna ku yidhi waa riyoolayaal. kadibna wuxuu ka codsaday maamulaha inuu u keeno biilka. maamulihii wuxuu sheegay in biilku yahay 1 euro. gabadhii iyo hooyadeedna way naxeen oo aamuseen. markii uu ku noqday warshada cabdiraxmaan wuxuu raadinayay sida uu sahayda u diri karo isagoo aan daalin. markas ayuu si kadis ah u tuuray xirmo taasoo ka gudubtay albaabka waqtiga. wuxuu ogaaday in alaabta sidoo kale lagu diri karo tuuritaan. askartii boqoradda waxay arkeen mucjisadan. sahayna badan ayaa bilaabatay inay kasoo muuqato. boqoraddu waxay amartay in si guud loo qaybiyo. askari ayaa aad u taabtay oo wuxuu doortay inuu qaybtiisa u geeyo qoyskiisa halkii uu ka cuni lahaa. boqoraddu way ka naxariisatay waxayna amartay in qof walba la siiyo raashin dheeraad ah si uu qoyskiisa ugu qaato, iyadoo tiri mar dambe gaajo ma jiri doonto. farxad ayaa caamka wada gaartay. barafna wuu bilaabay inuu doo. boqoraddu waxay tagtay warshada si ay cabdiraxmaan ugu mahad celiso. waxayna siisay dahab waxayna ka codsatay inuu usoo iibiyo dadkeeda dhar diiran. cabdiraxmaan si farxad leh ayuu u aqbalay, laakiin markii boqoraddu aragtay dharka casriga ah waxay u aragtay wax yaab leh. cabdiraxmaan wuxuu ku casuumay inay isku daydo dharka iyaduna si xishood leh ayay u aqbashay balse isla markiiba gabadhii hore ayaa mar kale timid.